أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. ما بعد، أحبابي الكرام meel kastoo naga daawanaysaan, asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. salaan kadib, insha allahu tacaala sidaad ciwaanka ka aragteenba hawada kelmadeennii koobneed waxaan ka hadlaynaa dhibaatada ay leedahay inuu qofkii in muddo uu tukanayo asigoon salaadiisii halna laga aqbalin. waayo salaada waxay leedahay shuruudo fara badan. shuruud bay leedahay, arkaab bay leedahay, mubdilaad bay leedahay. qofkana loo baahan yahay intaasoo dhan inuu kala garto. laga yaabo inaad in badan aad is leedahay waa tukanaysay oo waa sunnooyin aad la imaanaysay, haddana salaadii baan aqbalba jirinba. sayidina abu hureyra radiallahu canhu waardaa oo ka mid ah saxaabada nebiga caleyhi salaatu wasalaam baa marka wuxuu leeyahay, nin baa marka wuxuu tukanaya wuxuu yihi 60 sano buu salaad tukanayaa ayadoo hal salaadna laga aqbalin. markaas baa la yidhi abu hureyra sidee ku dhacday arrintaas? markaas wuxuu yidhi rukuucdeeda iyo sujuuddii iyo qiyaamkii iyo khushuuci midna ma dhammaystirayo. salaadii sida annaga u xisaabin karno wuu tukanaya qofka allahu akbar allahu akbar allahu akbar. rukuucda inuu dooro biyo cabis camal kale oon loo baahan yahay in arkaanteedii iyo shuruudoodii dhan baan ilaalino ma dhaceyso. waxaa laga yaabaa inaan u boobsiino. marka 60 sano adoo tukanayso markaad ilaahay horista subxaana wa tacaala lagu yiraahdo wax salaada oo ilaahay ku agtaala ma jirto, wax ka foolxun ma jirto. sayidina cumar bin khadaabna wuxuu yidhi qof baa wuxuu yidhi islaamku ku waayeeloobaya, islaamkiiba muddo ku duqoobaya ayadoo hal ragcana aysan laga aqbalin. macnaheedu waxa weye ragcadiina ma dhammaystirayo, sujuuddiina ma hagaajinayo, salaadiiba dhan waa ka wada qaldan tahay. alimaam ibn alghazali raximahullah wuxuu yidhi, sheekhii weynaaye jaliilka ahay, nin baa wuxuu yidhi sujuudaya war ilaahay buu u tukanayaa asigoo isla ilaahay baa subxaana wa tacaala ugu dhowaanaysaa sujuudatan. laakiin wuxuu yidhi dembiga ka xasilaya sujuuddaas haddii dadka magaalado dhanba loo qeybiyo yidhi wayba halaagsami lahaayeen. asigana sujuuddaas oo da-lagu kuuroon yahay buu u haystaa inuu ilaahay ugu dhowaanayo subxaana wa tacaala. dabeetana waa la weydiyo cali sidee bay ku dhacday? markaas wuxuu yidhi ilaahay subxaana wa tacaala buu u sujuudsan yahay, markaasuu wuxuu ku mashquulsan yahay adduunye jeceyl iyo xubu shahwaad. waxaasoo dhan buu qalbigiisina ku jira qish iyo xaaraan iyo waxaasoo dhan buu ku mashquulsan yahay. ilaahay subxaana wa tacaalana u sujuudsan yahay sujuud ayada dhanba khaflad socota ah oo wax ka jira hay jirin. marka walaalayga muslimiinta ah, fariintan caawa nafteedii tiina u dardaarmo waxay ilaahay ka cabsi ka sokow inaanu salaada aanu ilaalino, arkaanteeda ilaalino, waxyaabihii naga burinaya iska ilaalino. insha allahu tacaala sidaan hore u ballan qaadno muuqaalo musalsalana way noo soo socdaan oo aan barashada salaada uga hadlayno. hada wabillahi towfiiq. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.